waxaan rajaynaynaa insha Allah gudoomiyaha cusub la dooran doono waxaan haysanaa waqti gaaban aan ku soo doorano gudoomiye cusub haddana insha Allah ta'ala waxaan isku diyaarinaynaa qaabka aan u dooran lahayn gudoon cusub waxaan haysanaa muddo 15 bari maanta markii laga bilaabo insha Allah ta'ala waxaan keeni doonaa gudoomiye cusub haddii Ilaahay yaraaco codkana xildhibaanka iska leh waa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo aynu la dhex qaadnay mikrofoonka telefishinka Somali Cable isla markaasina siyaabo kala duwan uga hadlaya waqtiga kooban ee lagu soo dooranayo gudoonka cusub ee baarlamaanka kadib iscasilaadii gudoomiye Jawaari waxay sheegayaan xildhibaanadani muddo 15 cisho oo ay haystaan in ay ku doonayaan inay ku soo doortaan gudoomiye cusub oo uu yeesho golaha shacabka oo ah mid ka mid ah hay'adaha ugu muhiimsan dawladda Soomaaliya waxaan rajaynaynaa insha Allah gudoomiyaha cusub la dooran doono waxaan haysanaa waqti gaaban aan ku soo doorano gudoomiye cusub waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha la dooran doono mid u fala cadaalad oo u shaqeeya shaqada sida loo ikmado ama loogu dhiibto gudoomiye Jawaari nin taariikh dheer lah oo Soomaaliya u soo shaqeeyay qaranka oo haddana astaantii qaranka ay ka muuqatay wajigiisa ومواطنينما ay ka muuqatay baarlamaanka sidoo u dhisay u hagaajiyay kulay baarlamaan diyaarsan uu imaan doona qofka imaan doona insha Allah waxaan rajaynaynaa qof muwaadin ah oo gudanaya shaqadiisa gudoomiye kusmaha mayl ku faday in arday gudi oo hasaar oo gudiga doorashada oo hasaar muddo qobad laayeen waligeed ka bilaw ardayda ay bilaawdaas insha Allah ta'ala qaabadii aan meeli arday gudoomiye ku bay in gudoomiye kale la hagili si degdeg ardayda ay la hagili in arday shay waajibow إذا أردنا ما سنتين تكلمنا مع أمة الصومالي برلمان كقول الشعب كأوجي كردي ما كفرق سنة هذا إن شاء الله تعالى وحنسكت ديارنا قاب كان ودورنا لهن بدون عصب وحن هيسنا مدوشن يتوم بري ما أنت مركي الله قبل أبو إن شاء الله تعالى وحن كين دونا gudoomiye cusub hadii Ilaahay yaraaco codkana xildhibaanka iska leh codkiisa isaga dooranaya waa loo dhaariyay dad wuxuu ugu dhaartay codkaas inuu u dhiibto si muwaadinimo ah iyo walatinimo ah midda labaad oo leeyahay waxay tahay in nagala sugaayo inaan ku soo dhisno muddo 15 maalmood ah si uu gudoomiyahani hore Jawaari uu xilka ugu wareejiyo gudoomiyaha cusub oo imaanaya waayo xilka hadda ma wareejin karo ilaa gudoomiyaha kale uu ka yimaado laakiin shaqada waxa noo sii wadaya gudoomiyahani ku xigeenka koowaad Muudey waxaan leeyahay ninkaan soo dooranayno xildhibaankeena ah mid fiirsanay oo aan si walbaba dhinac walbaba ka fiirno waayo masiirkii dhambaaba dusha naga saaran saasa xooga saarayna waxaan garab siinaynaa meeshii aan leenahay qofkan masiirkeena waa qaban karaa muddo 15 bariya oo ka bilaabanayda maalinka gudoomiyaha xilka uu ka dago ama kursigiisu banaanaado ayaa gudoomiyaha doorashadiisa lagu qabanaya waan rajaynaynaa marka insha Allah muddadaas inaysan la dheeraanin oo sida ugu dhaqsiyaha badan aan gudoomiye u doorano kuleyba gudiga jiri doona arintaas qaban qaabiya kadibna gudigaas murashaxiinta ayaa codsiyada u geey doona kadibna waxay ka jeedi doonaan khudbadaha ku aadan doorashadooda golaha shacabka markaas ayaana loo xaday doonaa maalinta doorashada la qaban doona hadii Allah uu dal ogolaado iyadoo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya looga fadhiyo in muddo 15 cisho gudahooda ay ku soo doortaan hoggaan cusub oo baarlamaanka yeesho ayaa waxaa jira murashaxiin badan oo doonaya in ay u tartamaan isla markaasina ay qabtaan xilka gudoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxayna arintani ka dambeysay kadib markii xildhibaanada qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ay mooshin ka keeneen gudoomiye Jawaari taas oo dhalisay khilaaf iyo muran badan iyo isqabqabsi oo muddo soo jiitamaysay iyadoona toddobaadkan uu gudoomiye Jawaari sheegay in uu ka roonaaday isla markaasina uu tanaasulay xildhibaanada ayaa looga fadhiyaa in ay soo doortaan gudoon cusub oo uu yeesho baarlamaanka Soomaaliya waa Cabdulqaadir Umar Cabdulla Fiidka gudaha caasimadda magaalada Muqdisho Somali Cable TV